dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen shaqo la'aanta baahsan ee soo wajahday dhalinyaradaasi ku nool magaalada Jowhar. Mar aan saakay booqday waxa ay TV-ga Saab uga warbixiyeen xaaladooda nolol, waxa ayna ii sheegeen in xaalad adag ay soo wajahday nafsad ahaantooda. Waxa ay sheegeen in baagamudo ama shaqo la'aan ay la fadhiyaan goobaha lagu cabo shaaha. waxa ay kaloo ay sheegeen in horay dowladda Hirshabelle ballanqaadyo ay u sameeyeen uu ka mid yahay ballanqaadka Cali Cabdullaahi Cusuble u sameeyay dhalinyaradani ilaa haatan ballanqaadkii waxba uusan ka qaban. Dhanka kale waxa ay sheegeen wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka Hirshabelle in arintaasi ayadana waxba aysan ka qaban. Waxa ay dowladda Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka codsadeen in ay shaqo abuur u sameeyaan si ay dhalinyarada uga badbaadaan tahriibta. Waa kuwan ayaga oo TV-ga Saab uga warbixinaya arimahaasi. waxaan ay dhalintu ku nool Hirshabelle meeshaan waxaan gacdeena waagii gobolka ahayd iyo hadda ay noqotay caasimad labadaba inay same tahay. waqtigii gobolka ahayd Jowhar busteedu way socotay maadaama hadda maamul goboleedka Hirshabelle ay noqotay caasimadda Hirshabelle ilaa hadda bustii way socotaa, wax shaqo ay ma jirto, dhalintu iska soo kacdaa, say u soo kacday u xarotaa, wax shaqo ay ma jiro, baladka bustiisa ku cooso ma garad. marka waxaan aaminsanahay inay kulli tabsadaan inay wax ku dhamaanayaan maadaama oo nahay dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe degmada Jowhar. gobolka Shabeellada Dhexe degmada Jowhar waxaa laga dhigay caasimad oo labada gobol ah Hirshiiraan iyo gobolka Shabeellada Dhexe waxaa la isku dhahay Hirshabelle. gobolka Shabeellada Dhexe markii ay gobolno xabbo iska hayn haddana oo caasimad noqodna busti iyo dhalinyaradii oo ujeeda maalan yacni ay banaanka iska fadhiyaan hool ay qabtaan male madaxweyne buu gobolka leeyahay madaxweyne baan leenahay waxna agma jeedno. marka waxaa la codsanayaa in dhalinyarada shaqo iyo wax loo abuuro maadaama oo nahay dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe degmada Jowhar. taas ayaan ku codsanaynaa isdheynaa madaxweyne baan la doortay caasimad bay noqotay minida magaalada bedelmaysa wax aan bedelkii male bus baan ku jirnaa haddana bustii baan ugu socoto. magacaygu waa Maxamed Ibrahim Maxamed oo loo yaqaan Luwi jibida Jowhar haddii aan fiirino wallaahi shiid waaye suuqii waa iska jifnaa ma oo suuqii soo kacitaanka wax faa'iido uu leeyahay ma laha inay shiid tahay iskaga jeedaa waa kan meesha iska fadhinaa muddo dowladda Hirshabelle hadda wax ka codsanayna waxaan ka codsanaynaa inay wax noo qabataan dhalinyaro u nahay inay shaqo noo yeesho dadka dhalinyarada maxay taariikh u aadayaan leeyahay sidaan oo kale waaye taariikhku waxaa keenay shaqo la'aanta dalka ka jirto dowladda Hirshabelle dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dhalinyarada inay howl u sameeyso si ay dhalinyarada taariikhka ugu joogaan waxaas waa iskaga jeednaaba waxay sababay oo caasimadda Hirshabelle inay tahay waa la ogyahay balse laakiin shiidka jiraahe waxaa xagga alle ka imaadeen maaho wuxuu ilaahay keenana cid celin kartaa ma jirto wuxuu ilaahay qaatana cid ka soo celin kartaa ma jirto waan xagga alle ka imaadeen ilaahayna sidan wuxuu ka bedeli doonaa waayo asaa keenay aslan wax ka bedeli karaa cid kale wax ka bedeli karta ma laha laakiin ilaahay dadaaluu ku yiri annaan kula jiro dadaalkii inaan muujina laga baahan yahay dowladda Hirshabelle sidaas laga rabaa dadaalkii inay iyada muujiso ilaahayna uu garab ku siiyo. wallahi niyo waagii hore iyo hadda waagii hore fiicnada dhihi karaawo hadda waxa waaye dowladda dhismaha leeyahay madaxweynaha la yeeshto maamulka la yeeshto leeyahay wax hadda lagu hayo ma baladkii aniga hadda awran baad shaqadan yar hayna ma dad kale walaalahayna iyo wixii xukuumadda iyo dhan waa wada baahan yihiin hadda dhalinyaro badan oo imaad markaa lacagta qaadinayna galabtii oo dhaay maanta niyo dulkoona diiba marka waxaan ilaahay dawladda hadii dad ay yihiin oo dawladda iyo mas'uuliyadda shacabka ka qaadeen waxaan ilaahay dadkan oo masaakiinta xukuumadda shaqo ay sameeyaan midaasan ilaahay wallahi taas ay kala weydiina taas wallahi ay kala weydiina ay kala laga rabaa dadka masaakiinta xukuumadda oo xoogooda ku nool inay shaqo siiyaan shaqo u abuuraan ay adag u keenaan iyaga laga rabaa waxa soo dhan marka anaga waxaan ku jirnaa dhismaan ku jirnaa shaqooyinkan waxa marba siwa mar waa la helaa mar waa la waynaa majhuurna waa ka wanaagsan xaaladiisa macna sida badan macnaha dhagax laga midhisa marka helna waa shaqaysanaa maalmaan kaleentana beerayna xasan iska falnaa cawshadaas waa sax mana cid iga daarantahay ma jirto baladku waa aragteen baagamood aad u baahana ka jirto taas awgeed marka waxaan rajaynaynaa insha Allah maamulka gobolka maamulka Hirshabelle inay arintaas dhalinyarta shaqo abuur u sameeyaan
taas codsi weyn aad ugu jeedinayna iyo dowladda dhexe labadaba. dhalinyaradan ayaa hadeer wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiska dowlad goboleedka Hirshabelle waxa ay ka dalbanayaan in ay u sameeyaan shaqo abuur. dhanka kale waxa ay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ay ugu baaqeen ballanqaadyadii hore ee ugu sameeyay dhalinyarada in wax uu ka qabto. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa warbaahinta Juba Shabeelle News magaalada Jowhar.